الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما ننجي معاها ما أنت وحان إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إنه توفيقنا وافجيه وحان شيء إنه وحان فلنا إلهي سبحانه وتعالى كديه عمل كان ورن مد إلهي سبحانه وتعالى خالص وحان هذا كهر هل كان كلا هذا ولا الله يجا Soomaalida guud ahaan gaar ahaan gobolka Mudug dagaaladii ka dhacay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinaynaa in horta la gaaro nabadayn iyo heshiis labada dawladood Galmudug iyo Puntland waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa dadkii dadaalka ka geystay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu khayr ugu abaal gudo laakiin iyadoo oo heshiiskii dhacay haddana shalay dagaal cusub ayaa ka dhacay isla goobihii waxaan mar kaleeto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xusuusinaynaa walaalaheena jooga gobolkaas gaar ahaan ciidamada iskaga soo horjeeda meesha iyo labada maamulba in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka cabsadaan oo ogaadaan dagaalkan wax khasaaro ah oo muslimka iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu u geysto mooyaane wax faa'iido ah inaanu keenayn saas darteedna walaalayaal in la dhageysto baaqyada badan iyo dadaalada faraha badan ay galiyeen dadka Soomaaliyeed qaarna soo gurmaday goobtaba u yimi sida culimo waaweyn oo wadanka idinla joogta oo timi iyo dad madax ah oo meel badan ka yimi iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan baaqyada meel kasta gudo iyo dibadba ka soo jeediyay in aan dagaalkaas wax khasaaro ah mooyaane wax faa'iido ah ku jirin islaamka agtiisana uu xaraan ka yahay dad muslim ah dhibic dhiigooda ah inay ku daadiyaan bal wax khasaaro ah oo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda ah inay ugu geystaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu aad ugu goodiyay qofka dhiig muslim gardar ku daadiya waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له